qowmiyadda Amxaarada ee dalkaasi Itoobiya ayaa ka hortimid damaca qalabsan ee ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed uu ku doonayo in qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya uu ku qaato. Damacan ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay waxa uu gilgilay geeska Afrika. qaar ka mid ah shacabka iyo shucuubta dalkaasi Itoobiya qaasatan qowmiyadda Amxaarada ayaa heshiis beenaadkii dhexmaray ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha qaranka Turkiga ah ee maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa ay sheegeen inuu yahay fal qariska tuurnimo ah. dadka aqoon-yahanada ah ee ka soo jeeda qowmiyadda Amxaarada ayaa ku doodaya in Abiy Ahmed uusan ka fiirsanin waxa uu falayo. waxa ay tusaale u soo qaateen wixii dhexmaray Soomaalida iyo Itoobiyaanka berisamaadkii, waxayna si cad u sheegeen in hadda aysan Amxaaradu diyaar u ahayn in ay ku duusho dariskeeda ama dalka Soomaaliya. sidoo kale shacabka Amxaarada ee dalkaasi Itoobiya waxa ay sheegeen in